Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu gaaray magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika halkaas oo ku soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town. madaxweynaha ayaa markii uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ka degay waxa halkaasi ku sugayay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaana madaxweynuhu mid ugu gacan qaaday shacabkii maatinkiisa sugayay. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada isla markaana ka mid ah ganacsatada Cape Town Abdullahi Guure Abdulle labadoon shire iyo Sheikh Abdullahi Abdi Maxamed oo hadlay jaaliyadda ayaa waxa ay madaxweynaha u gudbiyeen salaanta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed haddana ah hogaamiyaha xisbiga ee meel qaran waqtiga la socda culimada bahda saxaafadda dhalinyarada gabdhaha marti sharafka dhammaan ka soo qayb galayaasha waa idin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. mudane madaxweyne ku soo dhawaaw dadka aad u socoto dadkaaga ahay waa kan dalka aad ku socoto waa kan wixii kale insha Allah ta'ala safarkaaga la xiriiray iyo wixii aad dadkaaga u sheegi lahayd iyo wixii ku sheegi lahaayeenna insha Allah waqtigeeda iyo meesha ay ku haboontaan isugu imaan doonaa. salaam waa soo dhaweynaynaa madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Sheikh Sharif waa soo dhaweynaynaa laana ku soo dhawow dadkaagii dad badan oo Soomaaliyeed baa meeshan degan insha Allah ta'ala magaalada Cape Town ku soo dhawow hadalna waa sarki doontaan marhaban bikum. madaxweyne Sheikh Sharif ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta farxadu ka muuqato waa uu muujiyay shacabkii Soomaaliyeed ee qaarkood guddoonsiyay ubaxyo iyo calanka Soomaaliya. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guddiga qabanqaabada iyo dhammaan soo qayb galayaasha bahda saxaafadda culimada diinka dhalinyarada ganacsatada yararka salaam dhamaantiin aad aan u faraxsanahay inaan runtii soo booqdo aadan uga mahadcelina soo dhaweynta waxaan u maleynayaa kulli hadda warku waa noo dambeyn doonaa laakiin hadda waxaan iska ekeysanaynaa soo dhaweynta marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala marraba inaan warbadan hadda meeshan ku galo waa iska boga doonaa waa idin la jooga insha Allah ilaa ay dhahdeen waa fasaxanta marka hada ugu dambeyntii qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa muujiyay sidoo uu arkaan imaatinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaana ka mid ahay ganacsatada Mahad Umar Cabdi. waxaan sheegay madaxweynaha hore ee Soomaaliya dadku hamuun badan ay u qabaan si fiican baa loo soo dhaweeyay bulsho badan baa isku soo baxday waxay ka marqaati tahay dadku ku sidoo madaxdii hore iyo madaxda future-ka iyo dalkooda dadkooda basay u jecelihiin. sidoo aragtay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa Cape Town welcome علينا Sheikh Sharif mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo anagu soo dhaweyntiisa aad aan ugu faraxsanahay Soomaaliya waan ku faraxsanahay madaxweynaha gudoomiyaha midda qaran waana soo dhaweynaynaa waa madaxda sugeynay waxaan welcome Cape Town ما شاء الله aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweyno madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed علينا welcome to Cape Town. Abdullahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika. halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliya